أنا ما يتوسو يتابسي وحنا عندنا مدرك الله مهور منين سومالان هذا حلقة قولة أي سدا أي نوع قولة دين هذا كدعو دبلوماسي ما يسومال إلا الدولية وشحشاحي سورة إليه الحزب الوضعي يو أوركا كه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملكستو أدوك جوجتان ما صاحبي الواحد سلامتين سلامة إسلامك. قلت برنامج كان واحد عدوين كي مال الله ها واحد ما تقصو قادنا حفلة حالي طولة كد علي مجال قبلي وطبعا وحياب النحل اللي جيش كيني كاسو كل مية قبصري إسلا ساكن الله صاك عي دانتا طبعا شكسير حسب الوطني يبار كحسب كا وطبعا وتشيدي لقى شرشري ولا تشحي oo kale nasiib wanaag waxa halka iyadana ka hadlay maanta oo arrinkan ka hadlay Muuse Biixi Cabdi kaasoo sheegay in wax laga qabanayo xilli uu qudbadeynayay sanad guura ciidan waayay kaasi waa qodobka labaad ee soo qaadanayna waxa weeye Maayir Mooge oo sheegay inaanay dadku ku mashquulin oo ay ku mashquulaan danahooda iyo danaha dalka وكان لبي قريبان كورنيا يعد كم مشغول شيء أرنك صدحات ومقال لا عتشبي دونتو كاسو دلير أن أي كاسو دوبين دكتة مايد أي عالم كسومال لان وطن كهنا وطن كوطننا وطن إيوه هل لبي قريبان كورن دونه كاسرة وموضوع جارة وأي واحد نكون رأينا حفلة الجبلي يا على كلا تحتحي يم دحوينا هذا الكيسة أي نسكسو قادنا ugu horeey waxaad ila daawataan Gibiley waxyaabo ninkii Cabdicasiis Soomaali kaga sheekeynayay xaflad ay Gibiley ku qabsadeen bal ila daawada tahay waynu soo celinayna dadka inaga leexda Soomaaliland maanta inay marayso marxalad aad u adag laakiin marxaladda adag waa marxalad qofka aqliga lehina oo garanayo doqona aan loo sheegay maanta Soomaaliland haday halka goolada ay sida ay nooga gooladeynayna haday ka dhacdo diblomaasi ma Soomaaliland وتبار جيني مستر سماله يوحى وخري أيوه والواحد لا داوتان صور كه وبورك إسلا ساكلة شحي واحد هالطبع لا داوتان مدحوين موسى بيحي عبدي أو إسلا بورك لا شحي كهلايا إلى داودا من السنة دي الإيراد بقى حكومي دقدق حالي مقالة هالقصة وحكاد عضي إلا الدولية وشحي سورة إليه الحزب الوضعي يو أوركا كه بليس كوا حكى عسلية قوم استوى حيلا كعة أما حزب قرب حيلا أما فتنة أبوري وحتورة إن دقدق سوق أوتو داوتين أيها رجينية هرت رير جبلي مدبان لا يحي رير جبلي مدبان لا يحي حفلة ده موسى بيحي يصور كلا شحن مدبان لا هرت رير جبلي بقى كورينية waxa uu Master Samaali ku yiri jaran-jaraynu maraynaa jaran-jarada hadii aynu ka dhacno Soomaaliland baa dhacaysa horta waxaanu ku leeyahay arrinka waxba kama jiraan Soomaaliland hadii ay iyagu soo baxaan baa laga yaabaa inay dhacdo oo ay baabado calanka la waayo balse hadii ay dhacaan waa guushii Soomaaliland waa aqoonsigii Soomaaliland waa wadajirkii Soomaaliland waa midnimadii Soomaaliland waa riyadii Soomaaliland waa qarannimadii oo guuleysatay baan leeyahay hadii kulmiye dhaco oo reer Gibiley taasaan idin leeyahay marka labaadna reerka halka naga dega laba arrin baa waanu sheegayaa laba arrin ba oo ayna kulmiye ku dooranba waanu sheegayaa labaad waxaan leeyahay reer Gibiley kulmiye waa doorateen waxa uu idinku yiri waxa idin ka dhigayaa gobol 2017 2024 noocii baatiin waxaan idinku soo hal qabsanayaa maanso waa abwaan hadraawi lahaa ilaahay haw naxariiste hana sidin culayskiisa hana sigan mar mooyaane ninku sireeha faalaynin sababaha weydiinin hawseeta dheeraynin sibiqiya ku qabo baydo horta kulmiye wuxuu idinku 2017 gool baa idin ka dhigayaa halkii baana taagantiin horta taa waan idin leeyahay hana siganina mar labaad baan idin leeyahay mari daga Allah dago laakiin mar labaad dage Soomaalidu waxay ku mahmaada mari daga Allah dago mar labaad dage balse ana istagay oo waxa idin leeyahay kulmiye mar hore idin dage mar labaad idin tagin
mid kalena meesha halka waan u sheegayaa oo u gaar ah oo ay bulshada Soomaaliland inay si guud u ogaataan u baahanahay horta waxaad maqashaan marka ay huwantu dagaalamayso huunaanu leynaynaa arrinkaas doonayna maanta idin fasiro arrinkana reer Sheekh Saxaaqa kale Soomaaliland cilmi ahaan kororsada aniga baaray aniga soo ogaaday cilmi baarista ana sameeyay haddii aad maqasho askari baa dhintay beesha habar awal ka soo jeeda boqolkiiba 80 waxaad aqoonsataa inuu reer Gibil yahay boqolkiiba 20 ka soo haray Ciise Muuse iyo Sacad Muuse inta soo hadhay u qaybi hadda arrinkayga u fiirsada haddii aad maqasho askari habar awal dhintay ilaa waqtigii SNM haddaad maqasho marka koowaad boqolkiiba 80 waxa tira waa ninkaas waa reer Gibil haddii aan reer Gibil yiraahdo haddaan si kala aan Soomaalidu hadda qabiilka kama faantay waa lagu faanaaye nimanka Jibriil Abukar 20 ka soo harayna Sacad Muuse inta dhowr iyo 10 jifay ka kooban yihiin Nuux Ismaaciil ee reer Sabatar waxa weeye Cabdalla Sacad Makaahil 20 ka soo haray intaasi laakiin 80 ka soo haray Jibriil Abukar waxaana ku bartay dagaalkii la ascaarona waan ku bartay taariikhda baadhayna waan ku bartay nimankan huwantu markay leeyahay waxay dhahaan xataa markii nin habar jecel dilayaan ama nin habar yoonisa huwanaanu la dagaalamayna isaaq horta Hargeysa dago kelmadda huwana isticmaala ma jiro barbare isaaq dago kelmadda huwana isticmaalana ma jiro burca iyo Ceerigaabo iyo Sool cid degto isticmaasha ma jirto kelmadda huwana waxa isticmaala dabcan Soomaalida galbeedka Soomaalida galbeed nimanka Samaroon qayb kamid ah iyo nimankan Jibriil Abukar qayb kamid ah isticmaasha kelmadda huuno maadaama ciidanka Soomaaliland nimankaas ku badan yihiin sidaas loogu bixiyay kelmadda huuno haddaba waynu ogno daarad lama aad uma de wax way ma ataagay Samaroon aan la dagaalamayna cid ay huwantu sheegaysaa waa ayaga horta taana waxa idinku soo qaatay oo aan halka u soo qaatay waxa weeye kulmiye ciidanka Soomaaliland uma fiicna oo maanta waa ogtiin heerka ay marayso haddii ay cid dhimatana inaga majority ka ah arrinka labada arrimood ba u dooranina dalka uma fiicna idin kara idin ma fiicna arrinkana waan xasuusinayaa reer Gibileeyo way taasan ka imanaya Musabbixi sawirkaas aanu imanaya horta Musabbixi inta sawirka si wanaagsan baad uga hadashay iyo sida arrinkan meesha ka dhacay dhibaatada ka dhacday balse waxa koos gareynaya uqdada Gibil laga akhriyayo ayuunba Hargeysa soo boodaysa marka Gibil laga lahaa ninka wadani taageera waa nacas oo waa doqor xun oo naga tagay marka la ilaaho reeraha tartamaya in la jeexjeexo ay dhalinyartii reerada kalena jeexjeexan sawirradii idinka ugu tala galay waxana weeye ilkadiga u irgoto weeye idinku ba mixnada calanka lagu jeexjeexayna keenaya idinku ba haddana la sharci baan wax kaga qabanna waayo adaa madaxweyne ka ku xigeenkaagina waa ka halka ka lahaa waxa ka akhriyay arrinka horta taa ka hore oo mixnada gobol kulmiye akhriyo ka hore inta aanad ka hadlin arrinkan horta Musabbixi inta ka imanaya bal waxaad ila daawataan maayirkii Hargeysa record bay yaali record way taalaade anu ma itu soo taabsi waxaan hayn dadka looma hor imanin way mise school way mise wado way mise bridge wala tirinaya wada maayir mooge inaad daawateen ma rajaynaya horta maayir mooge ereyada waxa ka keenay ayaan doonayaa inaan idin fasiro waxa jiray niman magaalada geliye waa maayir qiiro waxay yiraahdeen maayir mooge maahe waa maayir qiiro la waa adigu waa dhowr group balse group hadda ku haysta baa jira maxaad wadan u taageeraysaa oo ereyada adeegsanaya waa halka uu ka leeyahay maayir mooge aniga waxay way tusay taabsi horta qolada midaan yar sheegayaa horta ninka maayir mooge ku eryanaya xisbi baa taageertay wadani la yiraahdo waa cawaan adoo arkaya maayirkii Boorama iyo kii Berbera inay u ololeynayaan kulmiye adooga Solteeko
labadii 2017 inuu online kulmiye in adigoo ka burcahada ka jooga inuu kulmiyo online adigoo ka ceerigaabo joogaana inuu wadani ololeynayo waa khalad inaad nin Hargeysa maayirka ah aad ku qabsato maxaa xisbiga uga ololeysay waa ceeb weey waana cawaanimo waa cawaan baa tahay kuwa duurka ku nool ayaad la mid tahay kelmadda maayir qiiro ee isagu hadda ka hadlay waxay way tusay taabsi horta degmooyinka uu dhisay mar baan muuqaal ku sameynaya bulshadu waa siirwade dadku way doorteen ilaahay waxa marxaati uga ahay afarta daamoode Hargeysa ay ka kooban tahayba inay dooratay inaan qabyaalad lagu dooran inaan mareer hebel ba iyo masaasaan cid ku dooran in lagu doortay ninkani Hargeysa iyo Soomaaliland buu fiican yahay lagu doortay bulshadu waa siirwade bulshadu waa dooratay garoonkii uu galay waa siirwade bulshadu maayir qiire ee hadda la adeegsanayaan uma aaminsan maayir qiire yahay wali waxaan ahay dadka aaminsan way guuleysteen dadkii doortay because degmooyinka uu dhisay ayaaban arkaa nooca ay tahay taana intaasan kaga imanaya ee maayirku uu taageeri karaa xisbi oo ceeb maaha taa intaasan kaga imanaya muuqaalka cajiibka ila daawada muuqaalkaasi waa mayd waa dhalinyar calanka wadani iyo ka iyo Soomaaliland seeta bushaaran wada bushaaro ayaan u wada bushaaran wada xisbiga wadani wema Cabdiraxmaan Ciro sida qorshayaashiisa hadii uu soo baxo dekada mayd iyo dekada xisba uu dhisi doona iyo dekada lug hayo leedaaba intaas oo dekadood waa dhisi doona qofka madaxda markuu madaxweyne noqdo xanuuna ku dhaca jira hadii uu ilaahay xanuunada uu ilaahay ka badbaadiyo kow xanuun qabyaalad leedaaba jira waxa jira xanuun caadi oo ilaahay keeno oo sida xanuunada hadda dadka haya ee maskaxda kaga dhaca waxa jira xanuuno kale iyaguna qaar cabsi yihiin qaar waxyaabo kala jirin yihiin ilaahay caafimaad baan u rajeynaynaa ilaahay geesnimo oo dadka la hagraday oo wax ugu dhisan insha Allah u rajeynaya bushaaraan u wadaayo bushaaradan u wadaa waxa weeye insha Allah way dhismi doonaan dhulkaasi aad maanta calanka haysan way dhismi doonaan waana muuqaal qurux badan waana rajo aad iyo aad u qurux badan ilaahayna waxa weeye hadii uu talada dalka ugu dhiibo inuu ilaahay cudur ka badbaadiyo inuu soo duceeyo in ilaahay dadka ogoleysiiyana inuu soo duceeyo